السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقتي وناكسن أصحابتا شرفت له ميل كستو أد joogtaan casharkaana waa wada sheekaysi ku saabsan waxyaabaha maalinlaha ah. English conversation. English conversation. Conversation waa wada sheekaysi. Okay? Waa wada sheekaysi English ah. About oo ku saabsan daily routines. waxyaabaha maalinlaha ah. English conversation wada sheekaysi Ingiriis ah about oo ku saabsan daily routines waxyaabaha maalinlaha ah. Daily routines waxaa la yidhahdaa waxyaabaha sida joogtada ah loo sameeyo. Okay, aynu u guda galno marka. Waxaa wada sheekaysigan yeelanaya ama wada sheekaysanaya Ali and Abdi. Okay, Ali iyo Abdi. Ali ayaa hadalka bilaabay wuxuu yidhi, Do you have any siblings? Do you have ma leedahay any siblings wax walaalo ah? Do you have ma leedahay any siblings wax walaalo ah? Siblings waxaa la yidhahdaa walaalaha kula dhashay ama gabdhaha ahaadeen ama wiilal ahaadeen ama intaba ha iskugu jiraan waa walaalo. Okay, Abdi wuxuu yidhi yes ha I have waxaan leeyahay 5 brothers 5 walaalo oo wiilal ah and 4 sisters iyo 4 gabdhood oo walaalo ah 4 sisters. halkaas s ayaa ugu dambaysa waa jamac. Okay, wuxuu yidhi yes ha I have waxaan leeyahay 5 brothers 5 wiil oo walaalo ah oo ila dhashay and 4 sisters iyo 4 gabdhood oo walaalo ah oo ayaguna ila dhashay ayaan leeyahay. Ali wuxuu yidhi what time do you usually go to bed? waqtigee seexataa? What time waqtigee do you ayaa adigu usually badanaa go to bed sariirta aadaa? macnaha waqtigee seexataa weeye. What time waqtigee do you usually ayaad adigu usually badanaa go to bed sariirta aadaa? Go to bed sariir aadid. Bed. Okay, da ayaa ugu dambaysa bed. marka waxa weeye waqtigee sariirta aadaa badanaa micnaha goormee seexataa. waxa uu yidhi Abdi I usually badanaa go to bed waxaan sariirta aadaa micnaha waxaan seexdaa habeenkii at 9:30 sagaalka iyo bar. Okay, waxa uu yidhi I usually badanaa go to bed waxaan sariirta aadaa oo micnaha aan seexdaa at 9:30 sagaalka iyo bar. Ali waxa uu yidhi what time waqtigee do you usually ayaad badanaa adigu wake up kacdaa subaxii micnaha. What time waqtigee do you ayaad adigu usually badanaa wake up ayaad kacdaa? waqtigee subaxii kacdaa? Okay, wake up kicid subaxii markii la kaco ama hurdada laga kaco. waxa uu yidhi I usually badanaa wake up waxa aan kacaa I usually badanaa wake up waxa aan kacaa at 5 o'clock shanta oo buura ama shanta oo go'an. O'clock go'an. Okay, I usually badanaa wake up waxa aan kacaa at 5 o'clock shanta oo go'an ama shanta oo buura in the morning subaxii. Ali waxa uu yidhi what do you do maxaad qabataa? What do you do maxaad qabataa? macnaha maxaad ka shaqaysaa? What do you maxaad adigu do qabataa ama samaysaa? sidoo kalena waxa uu dhihi karaa what is your job shaqadaadu waa maxay? What is your job shaqadaadu waa maxay? halkan waxa weeye waa lasoo gaabiyey what is ayay ahayd calaamadaas apostrophe ayaa la yidhaahdaa marka lasoo gaabinayo wax ayaa la isticmaalaa. halkan is ayay ahayd idea meesha laga saaray waa lasoo gaabiyey calaamadaas apostrofta ayaa la isticmaalaa. marka labadaas yaabood ayaa qofka loo weydiin karaa shaqadiisa. waxaa la dhihi karaa what do you do maxaad samaysaa ama maxaa qabataa? ama waxaa la dhihi karaa what is your job shaqadaadu waa maxay? Abdi waxa uu yidhi marka I am an accountant waxaan ahay xisaabiye. I am waxaan ahay an accountant xisaabiye. sidoo kale waxaa la dhihi karaa I am waxaan ahay an nurse kalkaaliye ama kalkaaliso. I am waxaan ahay an nurse kalkaaliye ama kalkaaliso. sidoo kale waxaad dhihi kartaa I am a doctor waxaan ahay dhakhtar. I am waxaan ahay a doctor dhakhtar ayaan ahay. shaqooyinka aynu soo qaadanay ayaa midkii aad rabto markaasi isticmaali kartaa ama midkii aad adigu markaasi qabato. marka I am dhahdo shaqadii ayaad ku daraysaa. hadday shaqadaas u tahay
dhakhtarnimo oo doctor ah, hadday nurse tahay oo kalkaaliye ah, hadday accountant tahay oo xisaabiye ah, hadday farmer tahay oo beerola ah, hadday teacher tahay oo macallin ah. Waanu soo qaadanay qaar badan oo ka mid ah shaqooyinka. Ali waxa uu yidhi where do you work? Halkee ka shaqaysaa? Where do you work? Halkee ka shaqaysaa? Where halkee do you ayaad adigu work ka shaqaysaa? Work. Okay? Abdi waxa uu yidhi I work waxaan ka shaqeeyaa anigu work waxaan ka shaqeeyaa at a hospital. Isbitaal ayaan ka shaqeeyaa. I work waxaan ka shaqeeyaa at a hospital. Isbitaal. Ali waxa uu yidhi what do you like? Maxaad jeceshahay to do inaad samayso? What do you like? Maxaad jeceshahay to do inaad samayso ama qabato in your free time? Waqtiga aad firaaqada tahay, waqtigaaga firaaqada. Free time, waqtiga firaaqada. In your free time, waqtigaaga firaaqada. Waxa uu yidhi what do you like? Maxaad jeceshahay to do inaad samayso ama qabato in your free time, waqtigaaga firaaqada. Abdi waxa uu yidhi in my free time, waqtigayga firaaqada. In my free time, waqtigayga firaaqada. I like waxaan jeclahay to read inaan akhriyo books buugaagta. I like waxaan jeclahay to read inaan akhriyo books buugaagta. I like anigu like waxaan jeclahay to read inaan akhriyo books buugaagta. Ali waxa uu yidhi what is your favorite sport? Waa maxay ciyaarta aad xiisayso? Or sidoo kale wuxuu dhihi karaa what is your favorite food? Waa maxay cuntada aad xiisayso? Waxa uu yidhi what is your favorite okay sport waa ciyaaro ciyaarta aad xiisayso. Favorite xiisayn. What is waa maxay your favorite sport? Ciyaarta aad xiisayso. Marka kalena wuxuu dhihi karaa what is your favorite food? Waa maxay cuntada aad xiisayso? What is your favorite food? Waa maxay cuntada aad xiisayso? Abdi labadan jawaabood ayuu midku rabo ku jawaabi karaa. Okay? Haddii sportiga uu ka jawaabayo tan ayuu isticmaalayaa. Hadduu ka jawaabayo markaas cunadana tan. Waxa uu yidhi my favorite food, cunada aan xiiseeyo ama jeclahay is rice, waa bariis. Okay? Or ama pasta, baasto. My favorite food, cunada aan xiiseeyo ama aan jeclahay is rice, waa bariis. Sidoo kale wuxuu dhihi karaa is waa pasta, baasto. Sidoo kale waxa uu dhihi karaa jawaabtan kale my favorite sport, sportiga aan jeclahay ama ciyaarta aan jeclahay is football, waa kubadda cagta. Sidoo kale wuxuu dhihi karaa is waa basketball, kubadda basketka la yiraahdo. Okay? oo sidoo kale waxaa la yidhahdaa kubadda salada. Waa kubad bir la taagay oo baala camal ah, meesha ugu koreysa shabaq looga soo xiray, oo markaas inta qofku boodo uu shabaqaas ku tuurayo banooniga. Qofkii markaas la hela oo shabaqaas ka dhex bixiya ayaa markaasi dhaliyay goolkii. Gacmaha ayaana lagu ciyaaraa. Dhowr qof ayaa ciyaarta. Okay, marka ciyaartaas waxaa la yidhahdaa basketball ama ciyaarta basketballka ama ciyaarta kubadda salada. Abdi waxa uu yidhi my favorite sport, sportka ama ciyaarta aan jeclahay is football, waa footballka. Sidoo kale waxa uu dhihi karaa is waa basketball, ciyaarta basketballka. Ali waxa uu yidhi do you work out? Ma jimicsataa? Do you adigu work out? Ma jimicsataa? Waxa uu yidhi yes ha, I work out. Waxaan jimicsadaa 3 times a week, usbuuci. Wuxuu yidhi yes ha, I work waxaan jimicsadaa, I work out waxaan jimicsadaa 3 times. Okay? 3 times s ayaa halkaas ugu daraya. 3 times 3 goor a week, usbuuci. Yes ha, I work out waxaan jimicsadaa 3 times 3 jeer ama 3 goor a week, usbuuci. Ali waxa uu yidhi how much sleep, imise hurdo ah do you usually ayaad badanaa get heshaa? Imise hurdo ayaad seexataa habeenkii micnaha. Waxa uu yidhi how much sleep
imise hurdo ah do you usually ayaad badanaa get heshaa macnaha imise ayaad seexataa habeenkii waqti intee la-eg ayaad seexataa sidaas weye waxa uu yidhi I sleep waxaan seexdaa 8 or 7 hours 8 ama 7 saac ayaan seexdaa at night habeenkii waxa uu yidhi I sleep waxaan seexdaa 8 or 7 ama 7 hours saacadood at night habeenkii macnaha ama 8 saac ayaan seexdaa ama 7 saac marka it means waxay ka dhigan tahay hurdo ku filan waa uu helaa qofkaas okay sababta waxaa lagu taliyaa in ugu yaraan 8 saac ama 7 saac qofka uu habeenkii helo hurdo ama uu seexdo qali waxa uu yidhi how much water imise biyo ah do you usually ayaad badanaa drink cabtaa every day maalin kasta waxaanan waad u jeedaa waa simple present oo waa tenniskii aynu soo qaadanay oo loo isticmaalayay in looga hadlo waxyaabaha joogtada ah ee maalin kasta dhaca ama la sameeyo waxa uu yidhi how much water imise biyo ah do you usually ayaad badanaa drink cabtaa every day maalin kasta abdi waxa uu yidhi I usually badanaa anigu usually badanaa drink waxaan cabaa 3 liters 3 liiter every day maalin kasta I usually badanaa drink waxaan cabaa 3 liters 3 liiter 3 liters ama 3 liters 3 liiter ayaan cabaa aarta haddaad doonto waa la aamusi karaa haddii la doontana waa lagu dhawaaqi karaa oo liters waa la dhihi karaa litersna waa la dhihi karaa 3 liiter every day maalin kasta anigu usually badanaa drink waxaan cabaa 3 liters 3 liiter every day maalin kasta waa inta lagu taliyo in qofku uu cabo 3 liiter oo biyo ah maalintii ali waxa uu yidhi do you listen ma dhegaysataa to any podcasts wax podcast ah ma dhegaysataa do you listen ma dhegaysataa to any podcasts wax podcastyaal ah ma dhegaysataa podcast waxaa la yidhaahdaa barnaamijyo cod ah oo mararka qaarna muuqaal way noqon karaane oo waqti dheer soconaya oo waxyaabo nuxur leh looga hadlayo ama qof lagu wareysanayo oo internetka la soo gelsho ayaa la yidhahdaa podcast marka wuxuu yidhi yes ha I listen waxaan dhegaystaa English podcast English ayaan dhegaystaa if I get some time haddii aan waqti helo okay qofku markuu xoogaa luqadda fahmo waxaa aad loogu taliyaa oo aad iyo aad u wanaagsan markuu rabo luqadiisa in uu meel aad u heersaraysa u gaarsiiyo in uu dhegeysto podcastyadaas oo jira markaasi ayagoo Englisha oo aad u badan isla markaana dadka koorsada dhexdhexaadka ah ee dhamaysta ayaa markaasi ay ku habboon tahay inay dhegeystaan podcastyadaas waanan kula talinaynaa insha allah kuwa ugu wanaagsan oo ay tahay qofku inuu la socdo yes ha I listen waxaan dhegeystaa English podcast oo English ah if I get haddii aan helo sometime waqti haddii aan helo casharkeenii oo aan filayo inuu aad iyo aad u faa'iido badnaa intaas ayuu ku dhan yahay casharka xiga iyo mowduuc kale oo hor leh ayaan iskugu soo laaban doonaa aad baad u mahadsantihiin la socodka iyo dadaalka aad markaasi ku bixinaysaan casharada iyo sidii aad uga mira dhali lahaydeen hadafkiina intaas kusoo laaban doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu